kusoo dhawaada maadadeenii farqurxinta laatiinka noocii labaad ee italic laba. Hore waxaan usoo dhamaynay usoo duubnay noocii koowaad ee italic 1, noocan waa noocii labaad ee italic 2. casharkii koowaad casharka kan koowaad waxaan ku qaadan doonaa qayb ka mid ah lifbeetada xarfaha yaryarka ee ABCda xarafka A ilaa iyo xarafka F. aan guda galnay casharkeena. xarafka A markaa qorisid kor ayaa kasoo bilaabaysaa, madaxa waa iska laabaysaa xarafka A, kabacdina usha ayaa halkaa kaga soo xidhaysaa xarafka A. xarafka B halkaa kor ayaa kasoo qabanaysaa, madax yar ayaa u samaynaysaa, kadibna soo toos ushaas, kabacdina ku laabo ubucdaas dhexdaa kusoo laab xarafka B. xarafka C markaad qoraysid isigana kor ayaa kasoo bilaabaysaa oo bilowgii xarafka A ayaad qoraysaa xarafka C. xarafka D markaad qoraysid korkaa kasoo bilaaw xarafka D, xarafka C ayaa qoraysaa, kadibna ul madax leh halkaa kor kaga soo xir xarafka D, intana ul yar ugu sameey xarafka D. xarafka E dhexdaa ka bilaaw kor tag kusoo laabo xarafka E. xarafka F markaa qoraysid korkaa kasoo qabo ilaa halkaa keeti madaxa meeshaas ugu laab dabada xareedna halkaa ka marsii. qaabka ayaa u sameynaysaa marka xarafka ee labada leen oo dhexda ay ku qormaya meesha kor ayaa kasoo bilaabaysaa, intaa markaa qortay ayaa usha ku xiraysaa oo xarafka C u eg. xarafka B kor ayaa ka bilaabaysaa, meesha ugu sare soo gaari kara waa leenkaas hore xarfaha maslida ayuu kamid yahay. usha ayaa soo toosinaysaa, ubucdana waad ku laabaysaa xarafka B. xarafka C dhexda ayuu ku qormaya, meesha ugu sare soo gaari kara waa leenkaas, leenka ayaa kasoo bilaabaysaa, leenka kale ayaa keenaysaa. xarafka D markaa qorisid waxaa qoraysaa xarafka C ee kan ayaa qoraysaa, kadibna usha madaxaas leh ayaa kusoo xiraysaa xarafka D, faktaasna halka ayaa ugu samaynaysaa. xarafkii dhexda halka ayaa ka bilaabaysaa, kor ayaa kusoo laabaysaa, labada leen oo dhex ayaa ku qoraysaa, intana waa ku laabaysaa xarafka E. xarafka F xarfaha madaxle ayuu kamid yahay, meesha ugu sare soo gaari kara waa halkaas kasoo bilaaw ilaa iyo halka aad keentid, kabacdina usha halkaa ka marsii. aan u gudubno buugga caadiga lagu talagalay farqurxinta. leemankaas waxaa loo sameeyay xarfaha in ay hagaan waa 4 leen. xarfaha qaar labada leen oo dhexda ay ku qormayaan, kuwa qaarna 3 leen oo hoose, kuwa qaarna 3 leen ee kore. xarafka A labada leen oo dhexda ay ku qoraysaa, dhexda ku qor intaa, kabacdina usha kor ugu soo wixii adigoo tagto u sameynayo. xarafka P madaxaas u sameey kor madax yar, kabacdina usha soo toos 3 leen oo kore, ubucda dhexda ku laab xarafka B. xarafka C bilowga eeda ayuu eg yahay, labada leen oo dhex ku qor, kor ka soo bilaaw, leenka hoos keen. xarafka D sigana xarafkii C qor markaad qoraysa xarafka D, kadibna usha madaxa leh kor kaga soo xir, leenka uu kor ka soo bilaaw, tigtaan u sameey. xarafka E dhexda ayaa ku qoraysaa, halkaa dhexa ka bilaaw, leenka G, leenka kale imow, labada leen oo dhexa ayaa lagu qorayaa. xarafka F leenka uu koreeya kasoo bilaaw, leenka saddexaad keen, xariiqna halkaa leenka u aadan ka marsii. mar kale aan ku celiyo. xarafka A markaa qoraysaa xarafka C qor, labada leen oo dhexa ku qor, kadibna usha kor kaga soo xir adoo tigta u sameynayo. xarafka B kor ka soo bilaaw, ul madaxa leh, leenka saddexaad keen, kabacdina ubucda dhexda ku laab. xarafka C labada leen oo dhexe ku qor. xarafka D xarafkii C qor, kadibna usha madaxa leh kor kaga soo xir. xarafka E dhexda ka bilaaw, labada leen oo dhexe ku qor. xarafka F leenka uu koreeya kasoo bilaaw, leenka saddexaad keen. intaa qoraalo badan kasoo sameey adoo ku qoray buugga loogu talagalay farqurxinta laatiinka.
waxaa idin soo gudbinaya qore Maxamed Cabdalla Wasuge. Wixii faahfaahin ah casharkan iyo noocii ka horreeyaba waxaad igala soo xiriiri karaysaan nambarka aan qorayo waa inoo casharka xiga iyo qeybaha ka dhiman alif beetada.